Barashada dhaqanka iyo caadooyinka nolosha ku salaysan tahay ee bulshooyinka adduunka. Inaad wax ka barato waxa la isku raacsan yahay inay kaga filan yihiin waxbarashada suugaantooda, taas oo la hubsaday in aad si dhammaystiran uga helayso xog kasta oo kuu iftiiminaysa nolosha bulshadaas. Balse suugaanta ka hadlaysa dhinacyada kala duwan ee nolosha oo dhan. Marka ay arrintani suurto gasho, waxaa sahal noqonaysa sida aad u kala saarayso adigoo raacaya dariiqooyinkan fudud ee kuwani ka mid yihiin. Qodobka koowaad, waxa aad si fudud ugala soo baxaysaa heerarka iyo marxaladaha kala duwan ee bulshadu soo martay, nooc kasta ha ahaatee, sida dhaqanka, dhaqaalaha, siyaasadda, iyo cilmiga. Qodobka labaad, waxa kale oo aad si fudud u ogaanaysaa xiriiradii ay bulshadu la lahayd iyo ciddii xiriirka la lahayd, iyo weliba noocii xiriirku ahaa, sida mid dhaqaale iyo mid waxbarasho iyo mid gumaysi iyo mid xuduudeed iyo wixii la mid ah. Qodobkani waxa uu iftiiminayaa wax kasta oo soo kordhay afka, dhaqanka bulshada, weliba xilliga ay ku soo kordheen. Tusaale ahaan, xilligii uu gumaysiga reer Yurub uu dhulkeena haystay, waxaa la socday shaqaale badan oo ka soo jeeda waddanka Hindiya. Waqtigaas waxaa afkeena ku milmay kelmado ka soo jeeda af-Hindiga. Waxa ayna xusid mudan in ereyo hore oo af-Soomaali ah ay ku jireen isla afka Hindiga, sida adhi, badhi, gaadhi, diyaar, iyo booli, rati, iyo rooti, iyo wixii la mid ah. Qodobka saddexaad, waxa kale oo aad si fudud u ogaanaysaa aqoonta kala duwan ee bulshadaas oo ah qodobkan waxa uu la soo kala saari karaa qaybo muhiim ah oo dhammaantood macno weyn ku iyo heerka ay gaarsiisan tahay aqoonta ay dadku isku maamuli jireen, aqoonta guurka, arrimaha lama dhaafaanka ah ee u baahan in si run ah loo ogaado. In yar haddaynu ku noqono dhinaca cadaaladda bulshada iyo sidii ay ahayd, waxaan tusaale cad uga dhigi karnaa qaar ka mid ah maahmaahda Soomaalida, waxaana ka mid ah: Gari Alle taqaana, gari laba nin kama wada qosliso. Ilaahow aqoon ha nagu cadaabin, eexna ha nooga tagin. Kuwani iyo qaar kaleba waxa ay tusaale cad oo suugaanteena markhaati kaga tahay sida ay cadaaladda iyo garsoorka ugu soo heer sareyso aqoonta xiriirka ee bulshada, taas oo looga jeedo aqoonta ay bulshadu kula xiriiri jirtay bulshooyinka kale, nooca ay ahayd, iyo aqoonta ay ku dhisnayd oo faa'iidooyin badan ku jirto. Qodobka afraad, ugu dambeyn, waxa aad si fudud u ogaanaysaa arrimo la xiriira aqoonta dhinaca farsamada, iyadoona xambaarsan aqoon xeel dheer oo qeexaysa cilmiga farsamada ee dalkeena lahaan jiray, farsamadii bulshada u gaarka ahayd. Tusaale ahaan, waxay daaweyn jireen oo ay qali jireen meel kasta oo jidhka bini'aadamka ka mid ah, sida madaxa, gacmaha, lugaha, feedhaha, iyo wixii la mid ah. Aqoonta farsamada waxa kale oo hoos imanaya dhammaan qalabkii ay dadkani u isticmaali jireen baahida nolosha, sida agabka wax lagu cuni jiray, agabka ay biyuhu ama caanaha ay ku shuban jireen, agabka dagaalka lagu galo, iyo agabka aqal Soomaaliga, iyo waxyaabo uu ka koobnaa gabayga caanka ah ee uu tiriyay Abwaan Cabdulaahi Macalin Dhoodaan oo ahaa nin loo daba fadhiisan jiray afka Soomaaliga, dhaqanka iyo dabiiciga Soomaaliga. Gabaygan oo uu kaga hadlayay cilmiga dhirta iyo daawadeeda waxaa la yidhaahdaa Dhugad. Caanaha dharkeenka haddaan dhirir soo horsho, oo aan dhamaashiyo ku daro xamagta dhiig-saarta, oo aan ka dhiil xeerada, iyo intaan dheri ka soo buuxsho, oon dabool aan ku dhuujiyoon dab u dheereeyo, kol ay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene, ma nin dhoohan baanahay maxaa taa u dhugan waayey. Haddaan laamo dhaadheer ka qodo dhuunta xididkeeda, oo aan xadhig dhan uga soo xidho dhinac u laalaasho, oo aan weel u hoos dhigo biyuhu way dhibicdaaye, wuxuu dhigato bilaabiya boqoryuhu wixii ka soo dhiiqay, oo aan weliba dheecaan mooye ku daro dhammaystana u geeyo, oo aan dhaal ku wada shiilo oon dhalo ka soo buuxsho, inay dhamarka daawo u noqdaan way u dhowdahaye, ma nin dhoohan baanahay maxaa taa u dhugan waayey. Halkaas ayaynu ku soo wasaay saaxiibayaal, muuqaalka like naguna soo biirsan dhiirigelin.